shir jaraa'id ayay xisbiga wadani laantiisa Finland ay ku qabteen caasimadda Helsinki. shirkan jaraa'id oo ay ku beeniyeen xubno guddida ah oo laga been abuurtay inay ka baxeen xisbiga kuwaas oo lagu baahiyay saxaafadda. shirkan jaraa'id oo badiba guddida wadani ee laanta Finland ay ka soo qayb galeen waxa ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha laanta mudane Cabdiraxmaan Cartan waxaanu sheegay inay shirkan jaraa'id kaga hadlayaan warka beenta ah xisbiga wadani laantiisa Finland laga faafiyay. sidoo kale waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka Jaamac Xasan Cali iyo afhayeenka Maxamed Xasan Mataan oo ka mid ah xubnihii laga been abuurtay ayaa goobtaasi ka cadeeyay warkaas inuu been yahay waxaana yiraahdeen marka hore waa ilaahay baa mahad leh waxaan salaamayaa dadkan dhammaan bulshada ka fadhida reer wadani waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan bisha barakaysanna waxaan ka baryaa ilaahay tobankii dhexe dambi dhaafka ku jirnaa in ilaahay dambigeena iyo dambigii waalidkeena dhaafo anigoo magacayga leeyahay Jaamac Xasan Cali ana guddoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani ee laanta Finland 22kii bisha وصحافة كسر بحي جورنال هذا زمان قرطه أيها واحد بيننا إياه إن أنا مرتي كعسيرين حسب كلنا أنا كوبيرين كنت هنا واحد لقى حشور وقف بنادم إنه ماشي بقى شوين أما ومد أن واحد يدو ديار وهاي وأن قرين إن لقى بين أبورته وحاضر فرحون أركوا نبيننا والله هيك صحافة زمان لنا قرن واحد قرطه لنا إن أي واحد كدكتورنادان ومدرسة Somaliland وحي وأنا أقول لك شقيه فرنتي أنا وحنا هاي وطني هرانا وطني ما نوهاي مكان وطني ما نوهاي وأنا بالرمضان مرة بين هذا كل هذا وحسلام يا وحي مت إسلام كها وحسلام يا وحي Somaliland إلى هنا وح كبر يا بشاب بركيسن إنه تبيجين دافو يتبيجين والد كيمبا إلى هنا وح كبر يا من عذاب كنا وحريه إلى هنا وح كبر يا إنه قلبي جين السوتشيدو وحي ما رأتي تذكر Somaliland جودها كتيرنا وحنا كلها ترينا وحي أركتك الدوانا أما وحي سوشيغا إنسي وناكسن ل وبصر له سوشيغا أنا لسه عايم مريا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. salaanta iyo hambaliyada kulli waxaan la qabaa dadkii ugu horeeyay madaxda xisbiga kala duwan haday tahay golaha fulinta iyo hadii ay tahay garabka haweenka iyo garabada odayaashaba ruuxantii hawada salaanta ay mariyeen mid lamid ah ayaan dadka muslimiinta gaar ahaan dadka reer Soomaaliland u marinaya bisha barakeysan ee Ramadaanka dartiis hadii aan soo laabto arinta meesha aan maanta isku nimi oo muhiimadeeda ugu weyn ay quseysay warbeen abuur ah oo ku soo baxay website-da qaarkood ka soo baxay Jamhuuriyadda Somaliland bishii hore bartamaheedii ama aakhirkeedii warbixintaas oo kulli tilmaamaysay in madaxda laanta fulinta qayb ka mid ah ama ay iska casleen ama ay xisbiga laanta Finland ay ka baxeen ruuxantii guddoomiye ku-xigeenka laanta oo hadda arrinta ka hadlay oo isaga iyo anigu aanu ka mid ahayn dadka been abuurka laga sameeyay ayaan sidaa u beeniyay si lamid aan u beeninayaa run ahaantiina sidaa uu sheegay waa wax laga xishoodo oo foolxumo ah oo runtii aada loola yaabo in maaragtay dad reer Somaliland ay warbixin been abuur ah ay qoraan waxaa taa kasii daran oo runtii iyaduna la yaabkeeda leh warbaahintu in iyagoo aan wixii hubsanin meesha ay ka yimaadeen ama cidda usoo dirtay ama qaabkay u socoto in lasoo daabaco run ahaantii warbaahinta waxaan kula talin lahaa in maaragtay wararka noocaasa inta aan lasoo daabicin ka hor ay iska hubsadaan waxa ay yihiin iyo qaabka ay u socdaan markaa kadibna ay warbaahinta usoo bandhigaan ama website-da ay ku daabacaan waxba kama jiraan iskama naanaan casilin xisbigana kama naan bixin kulli mabda iyo fikir baan markii hore ku raacnay mabda iyo fikirkii aan ku raacnay baan haddana kaga midnahay warkaas wax maaragtay ka jira ama aan qayb ku leenahay ama aan ku ogeyn haba yaraatee ma jirto waana war been abuura sida raggii horeba ay u sheegeen wassalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan ku darsanayaa soo dhaweynta aan soo dhaweynayno Canab Axmed Nuux oo kamid ah kaadiriintii waaweyneed siyaasadda dalkeena muddada kusoo jirtay axsaab badan noo soo kala dambeysay doorashada aynu dooratayna aada iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa iyada oo markii aanu guddidayda fulintu ka tashanay
guddida haweenkuna ay ka tashadeen magacaawa aanu u magacawnay xubin ka mid a xubnaha guddida fulinta ee garabka haweenka laantiisa Finland aanu u magacawnay inay noqoto xidhiidhiyaha adduunka iyo laanta Finland oo ay aada ugu wanaagsan tahay jecelahay inay dad badan kaga fiican tahay una rajaynayo subxaanahu watacaala waa hawl ballaaran oo xisbiga hore dad aan xilkaa lahayn uu haynay maadaama ay xilkii la wareegtay inaynu halkii kasii socdana aanu aada ugu rajo weynahay inay kasoo bixi doonto canab haddii alla idmo markaanu kartideeda iyo kaadirnimadeedaba u eegno waanan kusoo dhaweynayaa sidii guddoomiyaha garabka haweenku uu sheegay waxaana leeyahay gacmo furan iyo niyadsan iyo waxqabad wanaagsan iyo shuruucda uu leeyahay iyo xeeroosaadka uu leeyahay xisbigu laantiisani oo aanu dhammaanteedba wada hoggaansanayno wasalaamu calaykum aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan aad idinka salaamaya kulligiinba guddida fulinta ee ragga guddida fulinta ee garabka haweenka gaar ahaan waxaan aad u salaamayaa ilaa iyo madaxweynaheena Somaliland ilaa guddoomiyayaasha xisbiyada ilaa iyo inteena halkan joogto kulligaan waan idin salaamaya aad baad ugu mahadsantihiin xilkaad ii doorateen ilaahayna waxaan ka rajaynayaa xilkii aan hanto inuu noqdo waanad ku mahadsantihiin guddoomiyaha garabka haweenka Mrs. Xaliima aad bay ugu mahadsan tahay Foosiye Axmed Qooblow Foosiye Xamare way dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhidibeen